السلام عليكم. kaneecada mowduucina maanta waxaan kusoo qaadanaynaa cayayaankan yar ee la xaqiray ay kufaartu yidhaahdeen ilaahay muxuu tusaale ahaan ugu soo qaatay cayayaankaas yar ee ah kaneecada. muuqaalkan maanta waxaan ku eegaynaa xoogaya xaqaaqa layaab leh oo kala duwan oo ku saabsan kaneecada ama dhilmaanyada. kusoo dhawaada mowduucina maanta. cayayaankan yar oo la yidhaahdo kaneecada oo ay gaaladiyo seen oo yidhaahdeen qur-aanka dhexdiisa maxaa lagu sheegay waxay leedahay cajaa'ib. kaneecadu waa mid ka mid ah cayayaanka aadanaha waxyeeleeyo aadna u dhibto xitaa cideeda iyo codkeeda inuu necabnahay. kaneecadu waa cayayaan yar oo ay jisheedu ku xiran tahay inaad labadaada sacbood aad isku dhufato. sidaasay tahayna binul aadamka waxay ka awood badisaa in badan, waxayna awoodaa inay samayso waxa uusan biniaadamku samayn karin. kaneecada waxaa lagu sheegaa inay tahay wax ugu badan ee dil aadanaha. hay-adda caafimaadka adduunka waxay soo saaraan sanad walba biniaadamka inta ka dhimatay iyo dilkiis wax uu soo bahaa. 2014 ayaa waxay soo saareen tirakoob lagu tirikoobaya dadkay dishay kaneecada. dadkaas waxay gaareen ilaa 750 ruux 750,000 ruux 750,000 ruux. layaab in cayayaankaas yar uu dila intaasoo kun qofood. xayawaanada adduunka wax dila lambar 1 waa kaneecada, xataa iyo xasuubiyeedka iyo libaaxyada ayadaaba ka dil badan. ayadu waxay dishay 750,000 oo ruux halkuu iyo xasuubiyeedkan uu dilay 1,000 ruux kaliya. waxaa jiro ku dhawaad 3,000 oo nooc oo kaneeco ah. dhediga kaneecadu waxay dhashaa markiiba 100 ilaa 400 oo beed oo kaneeco ah. hadday nooleyaasha kale iyo dhacdooyinka adduunka ay ka badbaadaanna maalin ama 2 maalin kadib ayay beedka ka soo baxaan ayna ku duulaan. kaneecadu si beedkeeda u badbaado dhacdooyinka iyo saameynta nooleyaasha kale waxay badanaa ku dhashaa biyaha fadhiya oo aan soconayn sida biyaha roobka oo meelaha isku tagaan. hadday dadka cabaanna waxay ka qaadayaan cudurka malaariyada ama duumada. kaneecadu way ka awood badan tahay baniaadamka. kaneecadu waxay leedahay 1,000 indhood oo kala madax bannaan halkuu aadmiguna leeyahay kaliya 2 indhood. qodobkaas waa mid. waxay kaloo leedahay 48 ilkood halkuu aadanaha uu leeyahay ugu badnaan 32 ilkood. waxaa kaloo jira oo laga yaabay inaadan ka warhayn, kaneecadu waxay leedahay 3 wadno. adiga waxaad leedahay 1 wadno oo hadday ka istaagtana ay ku dhamaanayso. ayadana waxay leedahay 3 oo hadduu halka istaago 2 kale ayaa usii harsan. waxay kaloo leedahay khardhuun 6 ah. gafurka ayaa waxay ku leedahay 6 mindiyood oo ka khatarsan kuway takhaatiirtu u isticmaalaan khaliinka. 3 baal ayay leedahay, dhinac walba waxay ku leedahay 3 baal. ilaahay wuxuu awood u siiyey qofka biniaadamka markay soo weerarayso, markay doonayso inay soo weerarto qofka biniaadamka ah uur aad u dheer dhididka ayay soo urinaysaa. xataa waxay kala saari kartaa inuu qofka hurdaayo ama inuu weli soo jeedo. waxaa kaloo ilaahay siiyey shucaac ay ku arkayso qofka jirkiisa, ayna arki karto xididaha ximbaarsan dhiigga meesha ay ku kala yaaliin. kaneecadu way kala dhiig jeceshahay oo way kala damac badan tahay. qaarkood siday dhiiggaas u mudsanayaan ama u dhuuqayaan marka ay iska qaban waayaan aakhirkii way dilaacaan oo way qarxan. mararka qaarna markaad kaneecada sacabka la hesho oo aad disho waad ka yaabaysaa dhiigga ku jiray oo gacantaada ku haray. kaneecadu waxay wadataa qalab badan oo isbitaaladan casriga aysan haysanin. qofka markay u timaado waxay ku kala saari karaysaa urkeeda inuu qofka dhiiggiisu wanaagsan yahay oo isticmaali karayso ama inuu yahay qof dhiiggiisu macaaneen. mararka qaar qof waa wada seexanaysaan wada jiifanaysaan caawa ayaad ka cawanaysaa markaasuu ku leeyahay maxay tahay kaneecadaad sheegayso. marka dadku waa kala nooc. qaarna dhiigooda wuu macaan yahay oo kaneecadu ma dayso, qaarna dhiigooda waa kharaariho kaneecadu ma taabato. markay doonayso inay qofka durto waxay ku samaysaa suuxdin
waxay ku samaysaa suuxdin, macnaha way suuxinaysaa hala ay doonayso hareerahaas ay doonayso inay dhiigga ka dhuuqdo ayay ka suuxinaysaa qofka biniaadamka. dhiigga way isugu khasmin oo dareere jilcan u noqdo mari karana tubadeeda yaroo dhuuban waxay ku daraysaa daawo. markay kaasii dhammaysatana waxay kugu sii daynaysaa, waxay guracsiin lahayd bakteeriyada iyo malaariyada ama duumada ayay kugu sii daynaysaa. marka ayaa meeshii aad xoqonaysaa, waana maray dhammaysatay waxay kaa rabtay oo howsheeda dhan wada qabsatay. bakteeriyadii kugu shubtay ayaa waxaan keenayo. wayaan dambe cilmiga ayaa wuxuu dahfiiday in kaneecada keeda labka uusan dhiiga quudanin oo baniaadamka maxoolaha toona wax yeelaynaynin oo dhirta iyo uwaxa caleentiisa cuno. cidda wax qaniintana oo dhiiga dhuuqdana ay tahay mida dhediga ah, keliyana waxay dhiigga ka cabtaa noolayaasha dhiigga diiran ama kulul, mana dhuuqdo dhiigga qabow. ujeedada ay kaneecadu dhiigga diiran ugu baahan tahay ayaa waxay tahay si ay u hesho awood ay ku dhali karto beed marka la gaaro xilliga taranka ay dhalaysay beedka, waxayna aad uga heshaa dadka dhiigooda ooda uu yahay. ruuxba ruuxuu ka dhiig kulul yahay kana dhidid badan yahayna way kasii jeceshahay. waxay kaloo aad u jeceshahay dhiigga hooyada uurka leh maadaama ay dhiiggeeda ka kulul yahay siday hore ahayd, maadaama ay tahay laba nafood oo isdul saaran. waxay kaloo aad u jeceshahay dadka khamriga caba maadaama jirkooda aad u kululaado soona saaro hawada ethanoolka oo dhididka ku jira. kaneecada dusheeda waxaa ku dul nool noolo kale oo ilmo qabata ah oo aad u yaryar oo lagu arki karo microscope-ka. noolahaasna waxay quutaan dhiigay kaneecadu soo dhuuqdo ay dib usii dhuuqaan. noolahaas ayaa culummadu waxay ku tilmaameen inay yihiin waxa uu alla qur-aanka noogu leeyahay fama fawqaha oo ah إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. waa aayadda 26 ee suuratulbaqara. waxa ugu halisan kaneecadu magaceeda waxaa la yidhahdaa anfil oo si deg deg ah kugu sababi karto malaariyada. kaneecadu waxay ka mid tahay ciidamada ilaahay, ayadana lagu ciqaabay boqorkii namruud oo sanka ka gashay. sidoo kale ayada ayaa dishay boqorkii adduunka 13 sano gudahood ku qabsaday oo malaariya ayuu u dhintay. waxaa lagu qiyaasaa in sanadkiiba ay qaadsiiso cudurka malaariyada in ka badan 270 milyan oo ruux, ku dhowaad 2 milyanna way u geeriyoodaan cudurka. kastuuba aadanuhu u sheegto horumar iyo wax inuu gaaray, ilaa hadda waxay qaban la'yihiin kaneecada aadka u yar oo ilaa xanuunkeeda iska daawayaan mooyaane wax kale ay ku samayn karaan ma lahan. kaneecadu waxay awoodaa inay habeenkii wax aragto si karoon si ay u aragto maalintii, taasoo sababtay in xataa lagu gaban karin gudcurka mugdiga. xataa haddii aad gasho qol wada mugdi ah ama xataa meesha ugu madow ugu mugdisan caalamka kama gaban kartid. midaasna waxaa u sababtay inay awood u leedahay inay soo raacdo kulaylka jirkaaga kasoo baxayo. waxay soo raacaysaa kulayl kasoo baxaya jirkaaga, meeshuu ka imaanaya kulaylka ayay soo raacaysaa, marka ayay ku imaan. waxaa lagu badbaadi karaa waa lagu badbaadi karaa ayaa waxay tahay in la xirto sinsiyeer, ama haddaadan xiranaynin aad hugsato go' weyn, meelaha kaa bannaan aad marsato kareemka loogu talagalay inay zuuliso kaneecada, mana kusoo dhawaan karto. labadaba ayaan isleeyahay waa lagu badbaadi karaa qaniinyada kaneecada. midda koowaad oo ah inaad sinsiyeer xirataa, ama midda lamaad oo ah inaad go' weyn hugsataa markaasay jiifanayso, meelaha kaa bannaan aad marsataa kareemka loogu talagalay kaneecada. daawado haddaad noo hayso fikrad ka duwan labadan, waad nagu soo kordhin kartaa commentiga nagula socodsii waxaad kaloo noo hayso si aan wax badan kaaga faa'iidno. waxaan isla soo gaarnay gabagabada mawduuceena maanta. intaynu kulmayno muuqaalka xiga insha Allah. inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.